waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo maamulka galmudug iyo shacabka iyo dadweynaha reer galmudug sida wanaagsan oo diiran oo waaltinimada leh nagu soo dhaweeyay sida wanaagsan oo qurxoon oo dal jaceelka ah dowlad jaceelka ah iyo madax jaceelka ay nagu soo dhaweeyeen marna waxaan iloobaynin tuulo walba aan soo maraynay magaalo walba aan soo maraynay waxaa taagnaa caruur iyo ciroole yaa taagnaa oo aan hubo inay ka dhex inay runtii ay lahaayeen meherad iyo shaqo ay lahaayeen laakiin jaceyl ay noo qabaan inay og yihiin aan soo soconno ay jidadka noo taagnaayeen saaka laga bilaabo aroorta hore ilaa markii ugu dambeysay aan halkan nimid oo qorraxdu dhacaysay oo aad noo taagnaydeen aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinaynaa sidaas wanaagsan oo waaltinimada leh oo aad noo soo dhaweyseen jidka mar labaad mudane xaaf wuxuu yidhi jidka waa raaxo badnaa wax raaxa ma arkin aniga weliba raaxo maahay keliyaha bay xanuunayaba jidkaasi wuxuuna siinayaa 2 cashar 2 daris uuna siinayaa mid wuxuuna siinayaa wixii aan ka dhaxalnay dowlad la'aan iyo burbur iyo qabiil waxaan ka dhaxalnay oo ay tahay indhaha inaan u furno inaan ka gudubno waxyaabihii burburka noo keenay oo ilaa hadda aan la dhisan la'nahay jidadkii oo meeshii loogu talagalay nus saac ama 1 saac aan u soo soconno 4 saac iyo kaliya xanuun waxaan kale oo aan ka baranay inay tahay inaan isxilqaanno oo aan u istaagno inaan dib u dhisanno aynan fiirsan maalin walba taako aan dhisanno maalin walba taako waxaa laga yaabaa intay rabta ha qaadato markaan isku tashanno oo aan isku kalsoonaanno oo wixii aan hayno kan ganacsadaha ah kan shaqeeya kan reer miyiga ah dowladda iyo caalamka wax alla wixii ay noogu deeqaan aan jidkaas ku dhisanno waxaan qabaa inaan gaari karno meesha aan doonayno inaan gaarno si uu jidkaas sida dhabtaa uu noogu noqdo jid raaxa loogu socdo runtii waxaan kaloo rabaa inaan hoosta ka xariiqo dadkaasna soo dhaweeyey oo wanaagsanaa inay ka muuqatay ma maqlaysaan inay ka muuqatay adkaysi fara badan oo qaarkood laga yaabo inaysan quraacan inaysan biyo haysan inaysan qadayn laakiin inayna arkaan oo na salaamaan keliya oo weliba qaarkood na dhunkanaya sida ay u jecel yihiin madaxdooda waxayna gelinaysaa diilo cusub inaan aad u shaqeyno inaan ka naxno inaan maxaan ku rahdaa aan la seexan oo habeen iyo maalin aan dadkaas u shaqeyno oo naga rajeynaya inaan mustaqbal wanaagsan iyo horumar aan gaarsiino socdaalkaygu runtii wuxuu ahaa socdaal aan ku macneeyey socdaal nabadeed iyo socdaal dib u heshisiin mudane xaaf qayb yuu ka ahaa runtiina waa ognahay oo 2 marxaladood yaan rabaa inaan wax ka idhaahdo 2 arrimood aan rabaa inaan wax ka idhaahdo tan gaalkacyo wax weyn ayuu ka geystay isaga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan u soo diray in uu muddo fadhiyo uu ka shaqeeyo 2 bilood ka hor in dadka waalaha ah oo kale xirnaa muddo dheer dagaalada iyo colaadda muddo dheer haystay oo weli ay ku dambayso dagaalkii sokeeye magaaladaas gaalkacyo in aan ka dhalinno inay noqdaan dad waala ah oo heshiis ah oo magaaladaas ku midooba inay noqdaan runtiina taas waxaan ka gaarnay heshiis laakiin heshiiskaas wuxuu u baahan yahay
dhaqangalkiisana waa gaaraynaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo. arrintaas heshiiskaas ma bilaaban hadda. heshiiskaas wuxuu bilowday 2011 markaan anugu prime minister ka ahaa. laba dhib baa dhacay. mid wuxuu ahaa gaalkacyo ka dhacay maamulka galmudug iyo puntland iyo maamulka galmudug iyo markaas maamulkii jiray oo ahaa ximan iyo xeeb oo cadaado ahaa. xaruntiisu ay ahayd cadaado. arrintaas runtii laguma guulaysan, laakiin bilaaw yay ahayd. laakiin hadda waa naga go-an tahay inaan dhammaystirno hadduu eebbe yidhaahdo, aan ku bixinno juhdi, wakti iyo dhaqaalaba aan ku bixinno si magaaladaas dhibaataysan oo qadiimka ah oo taariikhda leh dadka waalaha oo degan ay u midoobaan, ayna wax u wada qabsadaan, horumarkoodana uga shaqaystaan. laakiin tii galmudug iyo ximan iyo xeeb waa ku guulaysanay. maxaa yeelay waxaan u soo dirnay guddigaasoo 3 bilood dhex fadhiyey, 2 beelood dhex fadhiyey. halkan waxaa nala jooga caalim madaxweynihii hore khayr allah siiyo oo runtii door fiican ka qaatay. hadduusan isaga ahaan lahayn iyo guddigaasay ahaan lahayn, waxaan aamsanahay dhibka hadda laga sheegayo gaalkacyo mid 10 jibaar aynu dhici lahaa. laakiin hoggaankiisa wanaagsan iyo dadka runtii la shaqeeyey iyo annagoo daba taagneen, ilaahay waa nuu guuleeyey. 3 bilood yaan dhex fadhinay. waxaan ku bixinnay dhaqaalo badan, waxaan ku bixinnay waqti badan. alxamdulilaah dhibkaasna meeshaasu ku ekaaday, dib damba uma soo noqon. taas marka aan wax ka baranno, inaan arrintan taagan oo dhammaan la inaan waqti siinno, dadka hadda ku jira oo salaadiinta ah iyo culummadana aan gacan ku siinno, iyo madaxda hadda ka shaqaynaysa meeshuu ka bilowdo waan naqaanaa, inaan dhammaystirno insha allah, ilaahayna uu gacan noogu siiyo. arrinta labaad oo mudan xaaf uu ka shaqeeyey waxa weeye arrinta ahlu sunna oo jamiica oo aan berri u soconno magaalada dhuusamareeb aan u soconno. arrintaas wuxuu ka muujiyey runtii xilkasnimo iyo odaytinimo hoggaameed yuu ka muujiyey. weliba taas keliya maahee, shaqadiisii nus yuu bixiyey. ma aqaan wuxuu samayn doono wixii hadda ka dambeeya. laakiin wuxuu ku doorsaday dadkiisu inuu mideeyo, gobolkiisu inuu mideeyo ku doorsaday. waana waxa qof walba mas-uul laga rabo, oo ah inuu taariikh ka tago, legacy ka tago, oo la yidhaahdo xaaf intuu joogay muxuu sameeyey. wax kasta waxaa ka muhiimsan haddaad dhiig baajiso, haddaad dad waalaha heshiisiiso, haddaad mustaqbal u samayso, yaa wax walba ka muhiimsan. waan ku mahadsan yahay walaalkan xaaf. insha allah taariikhdan qoraysa cadaado maxay ka geysatay hawshaas. degmadan iyo magaaladan cadaado iyada naftigeeda dib u heshiisintaas qayb weyn iyo ka qaadatay dadka degan. maxaa yeelay markii hawshaani dhinac u bixi weyday, iyadaa tiri annagaa martigelinayna dowladdii. intaasna wax dhibaato u dhacay ma laha. dowladdii waa ku shaqaysay, waana ku mahadsan tihiin. meel fiican ayaa wax soo gaarsiiseen. idinkana taariikhda idin qoraysa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo, magaaladan taariikhda qoraysa iyo dadkeeda. insha allah kolleyba wixii hadda ka dambeeya waxay noqonaysaa sidii aan gobolkaan u dhisi lahayn, dowlad goboleedkaan u dhisi lahayn. wax alla waxay u baahan tahay oo karaankeena aan gacan ku siin lahayn. jidkaas ugu horeeyana aan dhisi lahayn si dhaqaalaha iyo dadka isu socodkooda uu u fududeeyo hadduu eebbe yidhaahdo.
idinkana waxaan ka codsanaynaa inaad wadaan halgankiinii wanaagsanaa martigelintiinii sharafka badnayd dulqaadkiinii soomaalinimadiinii dowlad jaceylkiinii inaad meeshiina ka wadaan oo aad xaaf oo aad arkaysaan inuu ka tanaasulayo isaga naftigiisa xilkiisii intiisa badnayd aad gacan ku siisaan in dowladda galmudug ay lugaheeda ku istaagto annagana federaalka qayb weyn ayaan ka qaadanaynaa waa mahadsantihiin walaalayaal